bismillahi raxmaan raxiim salaamu ullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka maxaa ka cusub ciyaaraha kubadda cagta. xilligan waxaa furan suuq kala iibsiga kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurubna waxay soo iibsanayaan ciyaartooyda ay doonayaan sanadkani in ay kula bilowdaan horyaalada qaaradda Yurub. horyaalka Ingiriiska ayaa furmaya 5 bisha maalinta Jimcaha iyadoo ka hartay kaliya 2 maalin. kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa rabtay inay isku diyaariso horyaalka, sidoo kooxda Chelsea ayaa ka gudbisay dalab gaaraya 40 milyan iyo dheeraad aan 50 milyan oo pound iyo dheeraad ciyaaryahanka la yiraahdo Marco Corella ayaa waxa baadigoob ugu jiray kooxda kubadda cagta Man City iyadoo doonaysay in ciyaaryahankaasi kala soo wareegto kooxda Brighton, balse isbuucyadii ugu dambeeyay Man City dalabkeedii lagama soo jawaabin iyadoo Man City ay ku doonaysay kaliya 30 milyan oo pound. Chelsea balse markani waxay miiska saartay 50 milyan oo pound iyadoo doonaysa in ciyaaryahanka ay soo xareyso. waxaa la sheegayaa in kooxda Brighton ay ka cagajiidayso inay aqbasho heshiiskaasi ama lacagtaasi ay Chelsea soo gudbisay, balse waxaa la sheegayaa in ciyaaryahanka heshiis oo la galay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, heshiis shakhsiyan ah oo la galay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. ciyaaryahankan haddii ay ogolaato kooxda kubadda cagta ee Brighton ama aqbasho dalabka Chelsea waxay noqonayaa in ciyaaryahankan ku biiro kooxda Chelsea, balse waxaa la sheegayaa kooxda Brighton sidoo kale inay baadigoobayso bedelkii ciyaaryahankaasi. Chelsea ayaa sidoo kale doonaysa Frank de Jong oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo de Jong ayaa arrimo ay ka dhex taagan tahay oo ah kooxda Barcelona oo ka codsanaysa de Jong inuu mushaarkiisa aad u dhimo sanadkan, balse ciyaaryahanka ayaa ka cagajiiday inuu mushaarkiisa hoos u dhigo. kooxaha kale oo doonayaan waxaa kamid ah kooxda kubadda cagta ee Man United oo doonaysa in ciyaaryahanka la wareegto. Barcelona mushaarkiisa ma awoodo, balse waxay doonaysaa inuu mushaarkiisa dhimo, isagana ma doonayo inuu mushaarka dhimo. sidoo kale waxaa la sheegayaa in ciyaaryahanka uu ku leeyahay Barcelona lacag 20 milyan oo euro gaaraysa oo bilihii la soo dhaafay mushaarkiisa ay bixi kari waayeen. Chelsea ayaa aad isku qalabaynaysa isku diyaarinaysa inay sanadka soo socdo isku diyaariso horyaalka, balse inkastoo wariyaasha ciyaaraha ka faalooday aad u sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Chelsea sanad soo socda top 4 aysan soo gali doonin, balse Chelsea ayaa ka jawaabaysa taas oo doonaysa inay suuqa iibsiga ka xamaalato. sidoo kale kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa moodaa in ciyaartooyda u ciyaara qaarkood ay sii fasaxayso ciyaartooyda aan ka heli doonin boos joogto ah naadiga kooxda kubadda cagta ee Arsenal. waxaa ka mid ah Pedro Leno oo ku biiray kooxda Fulham. Arsenal ayaa ku dhawaaqday shalay tole in ciyaaryahan Pedro Leno uu ka tagay lambarkiisii number 1 ahayna waxaa lagu wareejiyay ciyaaryahanka goolkiibaha kooxda Arsenal ee sanadkii la soo dhaafay la soo wareegtay la yiraahdo Ramsdale. ciyaaryahankan ayaa kooxda Fulham ugu biiray heshiis gaaraya 8 milyan oo pound isagoo u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Fulham. sidoo kale Arsenal ayaa isku dayaysa in ciyaartooyda qaar ay iska fasaxdo intaysan ciyaartooy kale la soo saxiixan, ayuu doonaya in lacagaha ay ka sameeyaan iibinta ciyaartooydaasi ay ku iibiyaan hal ciyaaryahan ama laba ciyaaryahan oo ka dhiman kooxda inay u tartanto top 4 sanadka soo socda. Arsenal ayaa sidoo kale fasaxi doonta ciyaaryahanka la yiraahdo Torreira ayaa la sheegayaa inuu ku wajahan yahay Galatasaray ee dalka Turkiga ayadoo lagu iibsan doono 7 milyan iyo bar oo pound. sidoo kale ciyaaryahanka kale kooxda kubadda cagta Arsenal fasaxaysa waxaa kamid ah ninka daafaca kaga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Arsenal ee la yiraahdo Bellerin ayaa ilaa hadda aan helin koox, balse kooxda kubadda cagta ee sanadka la soo dhaafay amaahda ugu maqnaa ee Real Sociedad ayaa doonaysa in qaab free ah oo ugu yimaado ciyaaryahankaas heshiiska Arsenal oo kula joogana la kansalo. sidoo kale Arsenal ayaa doonaysa Maitland-Niles inay iska fasaxdo. Arsenal ayaa iska fasaxi doonta daafaca dhexe ee kaga ciyaara kooxda kubadda cagta Arsenal ee sanadka soo dhaafay amaahda ugu maqnaa wadanka Talyaaniga. ciyaaryahankan magaciisa la yiraahdo Pablo Mari ayaa doonaya inuu dalka Talyaaniga u wareego, balse kooxa ka tirsan dalka Turkiga ayaa raadinaya, balse isaga rabitaankiisa wuxuu ku wajahan yahay dhanka iyo Talyaaniga. sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa iska fasaxday ciyaaryahanka la yiraahdo Balogun ayaa ku biiray kooxda Reims ee dalka Faransiiska. sidoo kale kooxda Arsenal ayaa ayaa amaah u dirtay ciyaaryahanka da'yarta la yiraahdo Charles Patino isagoo ku biiri doona kooxda Blackpool ee ka ciyaarta horyaalada heerka hoose ee dalka Ingiriiska. kubadda cagta ee Man United ayaa heshiis ka gaartay
in ciyaaryahanka Alex Telles oo ku biiray kooxda Sevilla iyadoo ciyaaryahankaasi uu wareegay kooxda kubadda cagta ee Sevilla iyadoo la sheegay in ciyaaryahankaasi qaab amaha uu ugu biiri doono kooxda kubadda cagta ee Sevilla. Cristiano Ronaldo ayaa la sheegay in ciyaartii u dambeysay kooxda Man United ciyaareen ee barbardhaca hal iyo halka la galeen oo isaga tagay garoonka ay ku ciyaarayeen kooxda kubadda cagta ee Man United iyo Rayo Vallecano. Ciyaaryahankan ayaa la sheegay markii la bedelay half time-kii inuu baxay oo gaarigiisana qaatay kana tagay garoonka kooxda kubadda cagta ee Man United. Tababara Erik ten Hag wax laga weydiiyay ayaa sheegay in arrinkani uu yahay arrin aan la aqbali karin kooxdani ay tahay koox ilaa ciyaarta dhamaadkeedana ay ku qasbiyeen ciyaaryahan walbaahi inuu joogo kooxdana uu taageero. Cristiano Ronaldo ayaa la arkay dhowr mar isagoo tababaraha kooxda kubadda cagta ee Man United wajiga aanan siinaynin oo kasii jeesanaya markuu tababaraha hadlay wax u sheegayo. Ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo ayaa doonaya in la iska fasaxo kooxda kubadda cagta ee Man United oo ka tago si uu ugu biiro kooxo ka ciyaara Champions League balse ilaa hadda lama hayo koox si dhab ah u doonaysa ciyaaryahankaasi ama doonaysa inay bixiso mushaarka waalida uu qaato iyo da'diisa oo aad u weyn xilligani. waxaa la soo warinayaa in looyarada matalaya ciyaaryahan Memphis Depay ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku wada jiraan wada hadallo si heshiiska uu kula jiro ciyaaryahan Memphis Depay loo kansali lahaa. ciyaaryahankani ayaa haddii la kansalo heshiiskiisa wuxuu noqon doonaa xor inuu ku biiri doono naadiga oo doono. kooxda Arsenal iyo kooxda Tottenham ayaa la sheegaya in ciyaaryahankani ay quudareynayaan inay keenaan Premier League balse maxay kula tahay Memphis Depay inuu ka ciyaari karo Premier League maadaama hadda ka hor ay la soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Man United oo ku feelgaroobay in kooxda Man United uu la qabsado. daawadayaal waa naga intaa barnaamijkii maxaa ka cusub ciyaaraha kubadda cagta ee aad ka daawataan markasta channelka cusubla TV. fadlan haddaa ku cusubtaa channelka subscribe saar, like saar videoga si asxaab fara badan u gaaro. waa ku maasan tahay daawashada muuqaalkan.